waayahay waxaana wanaagsan meel kastoo aad joogtaan halkaad nagala socotaan waa Somali American TV haddaba waa barnaamijkii la magac baxay kaftanka siyaasadda ali aad iyo aad baad mahadsantahay Yaasiin Ducaale iyo dadkana daawanayba wasaase waxaan doonayaa barnaamijka markuu ugu horeysa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku bilaabi doonaa qadar xayeysiisa oo ah darawaliinta baabuurta waaweyn ee isaga goosta kontonka state ee Mareykanka doonaya ama daneynaya in ay shaqooyin helaan ayaa waxaan u haynaa shirkadda la yiraahdo energy tracking waxay ku taala gobolka Florida salgeedu Orlando fadhida laakiin kontonka state meel walba ka shaqeynaysa darawaliinta ay qaadanayso oo dad aad u fara badan ayaa waxaan doonaynaa inaan u raacino dadka daneynaya in video markay daawadaan linkiga ku jira ama lifaaqa ku jira in lifaaqa ay buuxiyaan shirkaduna ay la soo xiriirayso iyaga la soo xiriiraysa marka linkiga uu buuxiyo ayay la soo xiriiraysaa marka linkiga buuxiya si aad information iyo macluumaad fara badan uga heshaan shaqada ku jeceshay qadarkaana ku soo dhawaada ogeysiis dadka Soomaaliyeed ee degan dalkan Mareykanka gaar ahaan daneynaya in ay ka shaqeeyaan baabuurta waaweyn ee traagada loo yaqaano oo ah darawaliin ayaa daawadayaal waxaan idin haynaa shirkad lagu magacaabo Energy Tracking oo fadhigeedu yahay magaalada Orlando ee gobolka Florida shirkadaasi waxay qaadanaysaa dad aad u fara badan oo darawaliin Soomaaliyeed ah kuwaasi oo ay siin doonto lacag ay ku farxaan amaba macaash fiican iyo waqti fiican oo shaqadooda markaasi ay ka bogtaan haddaba haddii aad daneynaysid in aad shaqo ka dalbatid Energy Tracking waxa aad nagala soo xiriiri kartaa lambarka telefoonka ee shaashada ku qoran si markaasi aan idinka gacan qabanno in shirkadu ay idin soo gudbiso arji ama form aad buuxisid formkaasi oo markaasi shirkadu ay aqbalayso isla markaasina ay ku siinayso shaqo aad ku farxdid haddaba haddii aad daneynaysid inaad noqotid truck driver ama darawal baabuurta waaweyn wada waxa aad nagala soo xiriiri kartaa nambarkaasi shaashada ku qoran oo haddii aan afka idinka sheega ah 612 aan mar kale ku celiyo 612-607-2962 shirkadaasi waxa ay qaadan doontaa team drivers iyo solo driver ama darawal keligiis baabuurka wada iyo laba darawal oo hal baabuur isla wada karta hadba nooca shaqo ee aad doonaysid haddaba waxaan ay shirkadaasi idin ballan qaadaysaa in ay idin siiso shaqooyin aad u qurux badan oo aad ku faraxdaan nagala soo xidhiidh mar kale lambarkaasi si adigoo afkaaga hooye ku hadlaya lagaaga kaafiyo su'aalaha qabtida ku saabsan shaqooyinkaasi Energy Tracking ay idin ballan qaaday. Hi everyone, this is Energy Tracking and this is good company. You can make great money and then company give you 2020 Freightliner Cascadia 2021 Somali Mohammed lagu soo yaacay company-gan waxa weeye lacag fiican ay bixiyaan marka markaas kala soo xiriira waxaan idin leeyahay hamoogaanina shaqooyinkaasi araajida iyo foomkana buuxsada waxaa dhammaanba bulshooyinka Soomaaliyeed la socotiina gaar ahaan dadka degan gobolka Minnesota ee agagaarka magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis in loo furay xarun caafimaad oo loogu talagalay daryeelka guud ahaan caafimaadka bulshada oo lagu magacaabo Action Care Community Clinic and Dental waxaa laga furay halka lagu magacaabo Bloomington oo aan ka fogeyn guud ahaan magaalooyinka mataanaha ee gobolka Minnesota ee St. Paul iyo Minneapolis waxaa halkaasi ku diyaaray dhaqaatiirtii Soomaaliya ajnabiga isugu jirtay ku takhasusay cudurrada kala duwan iyadoo loogu talagalay guud ahaan daryeelka caafimaadka bulshada iyo qofku da' kasta oo yahaba hadday tahay caafimaadka korka iyo waliba dhinaca dhoolla cadaynta iyo waliba hagaajinta ilkaha qof kasta da' kasta oo yahaba waxaa loogu talagalay dadka kaararka haysta iyo kuwaan haysanba in halkaasi laga daweyn karo iyadoo xaruntaasi ay tahay xarun u khidmeyn doonta bini'aadamka iyo guud ahaanba bulshada oo loogu talagalay dhaqaatiirta inay mar walba qofka eegaan xaaladiisa dhiigaga kala duwan ee la qaadaa markiiba waa laga jawaabayaa maxaa yeelay shaybaar aad u ballaaran oo qalabkii casriga u yaala ayaa ku yaala xaruntaasi lagu magacaabo Action Care Community Clinic and Dental ee magaalada Bloomington yaan la moogaan meel kasta aad joogtaan wixii faahfaahina shaashada
waa garanay haye inta wad garsama Ha. track driverski Ha. halkaas ay isugu tagaysaa halkaasay u yaacaysa ah haye wali waxaan u raacin u sheegnaa in ay lacag fiican iyo benefit fiican ay ka helayaan hadii lacag iyo traagaas koola Soomaalidu waa puubin waa bisama haye midba biro xoolo jiray Ah. Soomaaliya Ah. waxa la xiran jiray Okiyaale Ah. ay person iyo xoolo jiray Ah. Okiyaale madow hadda ma wax dhaatro may hadda way beriga Ah. ninka baashaasta ninka tagay way tagay ni lacag leh marka nin baa wuxuu oran jiray ha aad buu baasha u jeclaa gashan jiray ha jaamac la oran jiray ha markaas wuxuu yiri jaamac ka horan baa baasha ha wuxuu yiri baashan qiimaheeda ha wax ka qiimo sareeya ha ma garanayo ha markaan xidho Ha. wallahi waxaan siraahdaa Ha. ma khudbadaysaa khudbad sideeda wala qabtaa badseedii marka ninka baabuurka fuula waa inuu khudbadiisii raaciyo si raacsada haye bismillaahir rahmaanir rahiim haye waxaan ka bilaabi doonaa ha yaasiinu ha nin la xidhay waad maqashay Nin la Hal xidhay. jeer. maamul ama dowlad baa inta nin qabatay Xidhay. xagee wax lagu xidhaa jela sharci marka hore saldhigga booliska ka horeeya waxba ka soo horeeya haye marka qofka la soo saldhigga booliska la geeya Haye. saldhigga boolisku ha 48 saacadood gudahood buu ku jiriyaa Soomaaliya Ha. ayuu u gudbinayaan maxkamad haye in loo balamiyo haye halka inagana halkan ay ka tahay meel 24 hours haye maxkamadaas markaa dambigiisa iyo eediisa sheegaysa sheeganaysa ha weli ma ku soo martay qof la xidhay oo ninka mas'uulka xidhay ninka uu gurigiisa ku xidhay ma inta soo wadaysa Ya. inta soo aftu qol buu ku xidhay qol haye laba dib loo xidhay haye markuu subaxii baxayo Ha. ilaa isagu shaqo tagay Ha. ayuu intuu furo eego beerka ka sii laadaya naadila ka soo dilay toban laba week ha ayuu ninka beer laad ka dhacay Haye. oo gurigiisa ku haystay Haye. markaa kadib buu saldhigga booliska geeyey naadila waa shaqooyinka caqligaaga aanu geli karin waa geli karin. xaggee ka dhacday Haye. garowe ka dhacday garow liftigiisa garowe laftiisa nin la yidhaha Haye. maxamuud aadan kilwe oo ah wiil dhalinyaro Ha. ah oo wariye ah ha ayaa gurigiisii loogu dhacay gurigiisa loogu dhacay waxa uu dhacay taliya ku-xigeenka Ha. ciidanka nabad sugidda ee Puntland ee Puntland maxamed casayr baa la yidhaha haye maxamed casayr ha isagoo shaarkii dowladda gashan ha oo taliya ku-xigeenkii nabad sugidda Ha. ayuu yarkaa gurigiisa ugu dhacay dib Ha. haye intuu soo qaatay Ha. saldhig boolis ma geene Ha. ayuu gurigiisa ku xidhay gurigiisa ku xidhay ayuu ku xidhay hor waa dhibilaahay haye 15 maalmood ayuu xidhaya ayuu halkaa ku haystay gurigiisa Gurigiisa. kaasi dhimay markaa kadib Ha. ayuu u soo gudbiyey saldhigga booliska oo yoo naga qabto waxan maya hawshiisa broseska loo bilaabo maxkamaddii hawlihii ala soo taago aa la soo daayay waa ka soo dhirgi marka Puntland ha ma guryahooday dadka ku xidhanayaan jeelka iska waa maxay dowladnimada iyo maamul Ah. sidaa u eg Ah. xagee laga mara xagee salwaar waa qiso cajiiba wey Haye. waana wax dhaba Haye. waayahay ninka maxamed caseyro taliya ku-xigeenka ha waxaa hawsha la waday Ha. taliyaha madaxtooyada haye nin la yidhaha cabdiqaadir jaamac dirir dirar madaxtooyadu ka socdaa madaxtooyadu ayuu taliya u yahay haye taliyaha madaxtooyada ha master dirir ha iyo caseyr oo ah ku-xigeenka nabad sugiddu ha labadoodu ha madaxweynaha isku xaafadiin waa rami cali quwaax ayo cid la hadli kara mayso waa ciyaalka madaxweynaha ha la hadli mayso ya faray ka baxday marka dowladnimadu waxa weeye Hawaa la in yaa taray. madaxweynuhu ha jifadiisa Ha. uu yidhaahdo dadka qabta guryihiina ku xidha ha iyaga waa saa doona ha sakay iyaga waa seen rabaan say rabaan ha meel waxay dhoo waxay ka mid tahay Haye. maamul wanaagga maamul wadaaga ka dhintay Puntland ha inankaas ku day Puntland intaas markay maraysay ha ayaa waxaa loo soo jiray warqad maxkamad ciidan wiilkii maskari baa isagu maya aska weligaas waa wariye haye kamarad buu sitaa haye maxaa lagu soo eedeeyey Ha. isku day dil isku day dil cid buu dil gaari kamaradu malaa cid ku dhufan gaari yarku qori ma sidoo kabradu Kamarada mala- arba qorob malaya kabrad kamarada marmar dhacdaan waayahay waa dembiga ay ku soo oogeen Haye. waa marka la doonayo qofka in aakhiro loo akhir dhaadhico loo dhaco ha isku day dil isku day dil haye askari ma aha Haye. sarkaal ma aha jabhad ma aha Haye. soo ma garan Ah. al-shabaab ma aha Haye. waa inuu wareeyo kamarad sida wax dudumanaya isku day dil isku day dil waayahay haye ninka ha ayaan haddaba waxaan soo bandhigaynaa dadweynahayna daawada Ha. sababta dhabta waxa uu sameeyay yarku xusabi yarku wuxuu sameeyay inuu sheegay haye la wax magaalada qardho dhahar dhahar labada magaalo isku khaldahay wasuukiina oo qardiya dhahar waaye magaalada dhahar la yiraahdo ha waa magaalada yarku ka soo jeedo ha dhahar baa wax ka dhaceen Haye. wixii ka dhacay baan sheegayna haye guri dawladda hoose loo dhiso weyn ha ayaa laba jeel baa la furay haye
guriga waxaa dhisay Ha. Jamaal Maxamed Xasan wasiirkii wasiirka qorsheynta qaranka ee Soomaaliya ayaa dhisay waana xildhibaan Ha. ayaa kharashka bixiyay oo dhisay guriga dawladda hoose ayay dowladda federaalka ka timi dawladda federaalka ka lacagtaas ka timi wuxuu kaloo dhisay meelaha ay ka mid tahay Ha. mool mool 120 qol iyo wax gow waa dherigay ha haye iyo meelo kale haye okay toddobaad dhaweyd ha barnaamijkan wuu ka sii deynay ha ayaa gurigaas oo la furay dawladda hoose ha ayaa waxa la yiri ha yaan amaanta creditka la siinin dawladda federaalka ah iyo Jamaal Maxamed Xasan ha inay Puntland dhistay hal laga dhigo laga dhigto waa mushkilada haye meeshii hore loo furay la isticmaalay gurigii ha ay ma mar labaad hadana xariga laga jaray inta lagu xidhay baash maqaski maqaska soo heer sare yaa yimid haye yaasino haye gudoomiyaha gobolka ha iyo kii degmada Ha. ayaa furaya Haye. Puntland waxay soo dirtay Ha. wasiirka xanaanada xoolaha Xanaanada xoolaha. Saciid Cismaan Saciid Fiskis baa la yiraahdaa soo xoolaha lagu daaqay iyo wasiir ku xigeen Ha. oo arrimaha gudaha ka Haye. ayaa Puntland laga soo diray Oo la soo hortay. si la isugu sawiro Ha. xadhiga iyo mashruuciyo la furayo la furayo ha mashruucana waa mid hore loo furay horaba loo sii furay dowladdu furatay waa markii labaad ee maqas la leeyahay arwa xadiyo haye intaas ma dhacday ha yarku uu sawirayay ayo magaalada dhahar oo dhan way ogtahay Ha. in mashruucan aanu Puntland ka iman uu federaalka federaalku ka yimi haye waayahay inankii hadda muxuu sameeyay ha toodii markuu duubay Ha. ayuu magaaladiina ka duubay Ha. sidee u aragtaan waxa la duubayo mashruucan Ha, maqaska nin walba hadlay markaasuu yidhi Ha. hayaay war waa mashruuci Jamaal naga daaya maqaska yiraahdo naga waa daaya maxay ruwaadu? war Puntland waa lagu qabtay arrinta intaasuu wiilkaasi sii daayay de waa ku qabtayo been buu ku qabtay beentaa uu qabtay darteed ayaa loo qabtay ayaa waxa loogu xidhay Ha. xabsiga Ha. iyo nin gurigii Ha. oo lagu eedeeyey Ha. isku dil inuu wax dilayay kan waxa ma dhaanto mar hadii meel lagu qabtay ya waxa ma dhaanto Ha. haye meel kale oo ay wax ku qoraan bay galayaan waxbuu xaday dawlad buu maagay Ha. midna maaha Ha, isku day Okay, dil. waxyaabaha uu duubay ee qaarkoodna mudaharaadka garow ka dhacay uu yahay ha bal ilaahay amarkii ha imsa jeer baad daawatay mudaharaadka dhacaya iyo boqolaal waxa dhahar ka dhacay boqolaal maxaa loo xidhi waayey Ha. idaacadaha iyo tviyada kale ee ka baxeen waxan Haye. oo yarka loogu xidhay diraad isaga ogeys inna lillahi tawa beesha dhexe aanu ka tirsanay ha de beeshi dhaxaan ahay waa intaa mushkiladu waa inta mushkiladu Ha. madaxweynaha isu dhaweyn madaxweynahan shaqo isku lahayn ha waa saas weeye Waaya. waa dhibaato waxaan leenahay ha ummadda waxaa maamul loogu sameeyey Ha. in lagu kala hago Ha. in nabad loogu keeno Sharci. in horumar loogu keeno Ha. ma aha in lagu kala aarsado Ha. in qori la isu qaato Ha. in shaad dawladeed la la isu gashado waxaa kaloo ceeb ka ah Puntland Ha. in taliye ama taliye ku xigeen nabad sugidii ha uu qof gurigiisa ku xidho waa ceebti u weyn ceeb weyn wey. saldhigga booliska gee Ha. dembigaad ku haystidna caddee Ha. maxkamadda la soo taago waa intaasu ha wallahi waa dhibaato markaa yarkaa waxba laguma haystee Ha. iyaynaan yaan been la si sheegine Ha. inankaa hawshiisa degdeg ha loo galo farahana laga qaado wax dambi uu leeyahay oo muuqda meesha Ma kuma jirto. jiraan Ned. waayahay Puntland baynu weli ku jirnaa ha yaa ka ah wasiirka arrimaha gudaha Puntland Ha. wasiirka arrimaha gudaha dabana casmi ma maya he waxaa la yidhaahdaa gallan galan wasiirka difaaca maya wasiirka arrimaha gudaha masaaka Ha. haye meel idaacadna ka dhegeysta may isagoo meel dhagax dhigaya isagoo meel amni ku jira isagoo cid kala qabtay miyaad waxba may wasiirkii amniga ha oo weliba 4.5 ku yimi ha oo boosaaso ka yimi ha cidluu taagaya waxaa kursiga ka qaaday Ha. wasiirka maaliyadda ee Puntland ha xasan shire abgaal baa ka qaatay oo ka murarsaday balba aan kale oo hanjabaya marka amnigu yimaado Aye. oo marka mudaharaad yimaado ka maaliyadda hadlaya maliyadi maxaa iska ma hadli kara ninkani afkiisu ku hadlaya afkiisi baa ninkan ku hadlaya aamus bi yiraahdo ii fadhiso adigu miskiin baa tahay mushaar iska qaado adu waxa qaado Qaado. magacaasna yahay magacaan ahay Ha. inaad xagga boosaaso ka laakiin faraha iga qaad arinta ha hawsha ida horta wuxuu soo iibsaday Ha. baabuur aan ku tusayo oo ha aanay xabadu karin oyoy wallahi taas waa lacaga ha ya baabuur Ha. aanay xabadu karin Ha. ayuu soo iibsaday haye yuu ka baqaya ya yuu ka cabsanaya marka wuxuu ka cabsanayaa dadka miyaa shacabka de eg mar haddii aad cabsatid Ha. oo baabuur xabadu aanay karin aad la timaadid ha aanaad qabtaa marka wuxuu dilay miyaa dee eg Xisbiyiin. qofka harkiisa ka carara Ha. ama ammaankiisa u baqaa Ha. waa nin dad dembiye ka galay ka baqaya waana maaliyad ninku Haye. maaliyadu qabsi ma garanayda waxa amniga u keenay haye balbaali lama kooxdan Arijan jaarigan baa caadi kooxdan Arijan Ha. ayaa waxaa samaysay
baabuurka waad aragtaa sama ها waayahay maalin wuxuu tagay qardho هي facebooka ها ayaa waxa la soo qoray ammaan هياي wasiirka la amaanayo هي الصومالي يري ammaanta meel kuu sheegaa مايو برامبر waxa la soo sawiray maye ها baabuurkiisii ها oo ri ka istaagay ri jidka gudbis ayuu istaagay dadku ka istaag way cali ri waxay ku leeyihiin naxariistiisa ribu ka istaag iyo wanaagiisa inta la sawiray rida ayuu wasiirku ka istaagay حوالي تتكلم والمرأة برجر ومرجع برجر ولا جيري ولا ناسف عبد السبيع وزير حسن شراء أبقال أيا إمك صور رجي هدي ريدو تشيت كاي كجود بيسو إنه جيستاو لكن تتكلم تشيرو تتكلم تشيرو شغل ما تتكلم فيسبوك بضح كو قرطي أيا الوصل حرية ودم لو قرية ريدي وحوي ولا جيستاو مركوا أمان بلواي أمان الله أمان كله أيا نكا وذاك اللواي واساسي أنت هذا اللي قرأت سما waayahay doorashooyinkii ayaynu eegi doonaa in yar bal sheekadan doorashada ee socon la haye ee Soomaaliya haye waxa weeye Deni iyo Axmed Madoobe mowqif bay taagnaayeen hal mowqif haye oo in gida ciidamada laga qaado iyo in hal meel laga codeeyo oo Kismaayo qura arrimahaas oo dhan ka soo gudub maxaa ugu dambeeyay aakhirku ugu dambeeyay warqad bay qorteen murashaxiinta iyo mucaaradku waxay la hadleen international community dhawaato badan beesha caalamka beesha caalamka soo dhex galay bayla arintay faraas soo galiyay beesha caalamka ayaa dabeetana fikirtay warqad bay soo qoreen warqadda waxay ku soo qoreen 17 September wixii lagu heshiiyay ee aad wada saxdeen ay bashaqaynaysa waxa ku jooga halka ku jooga wax kale ma soconayaan waxa kale soo qoreen waxna lagu ma dari karo waxna lagu ma jiri karo go waa marweyn meel kale ay dacwadaan bad aad u sheeg xageed iyo talo la jidku wadada waa soo xirmatay ma Chinese marka u diray warqad warka intaas isugu soo ururay haye ninka la yiraahdo lafta gareen 19 bishan ayuu wuxuu keenayaa xubnihii u galay aqalka sare oo doorashadoodii gudidii buu la shiray heer gobol ee doorashada ee gobolkiisa haddii ilaahay ku reeyahay waa diyaar war dhibaatay waxay noqonaysaa beesha caalamku waxay kaloo ka digtay haddii la gaaro xitaa February 8 oo aan doorasho dhicin in aan wax rabshad ah iyo isku day kacdoono inaan dhacin ma dhacayso sida meesha ka muuqata isjiidkaasi wuxuu keenayaa mar kasta in dawladdu imka jirta ay ku kororsato waqti dheer iyadoo duruufta la eegayo walu khasbi walaalkii yar baa loo siqayaa dabeetana saasa lagu tagay saas halkaas la aadaya waxaan iyo barnaamijkeena ku darayaa arrin humanitarian arrin aan bini'aadnimo oo ka taagan gobolka Bakool xageed xudur magaalo la yiraahdo haye waa koonfurta baydhabo xagga ka xigta ka xigta haye waajid meel jeel la yiraahdo 20 jiro la oran jiray waa areas haye gobolka waxa ka taagan area oo dhan dhulka waxa haysta 80 aan shabaab haye jidadkii bay istaageen baabuurkii raran ee raashin sida way gubayaan taas war dadkii waxay maraysaa magaalada Bakool $80 gadbada sonkorta go war waa qaali garood soo galaada oo dadku carran bay rabaan dadkii adduunyadii kale waxay ku tagayaan oo wax lagu geenayaa diyaarado haye ciidamada federaalka meesha jooga diyaarad baa xogeynaysa kuwa qaramada midoobay ama beesha caalamka ee area-da jooga diyaarad baa xogeynaysa shacabka ayaa xogeynaya marka shacabku waa dhinteen shacabku carran baa la rabaa waxaan halkan ka soo jeedinayaa xildhibaanada dawladda federaalka ku jira ee gobolka Bakool ka soo jeeda ka tirsan in ay eegaan oo arinta wax laga qabto in dadkeenu ay meel go'doon ku dhintaan ama al-shabaab la dagaalama oo dadkii baneeya ama iyagana diyaar ugu geerash wuxuu sameeyaa haye intaasina waxay ka jirtaa halkaa wasaase macallimo waa la kacay macallimo waa kee ninkii gido gudoomiyaha gobolka kasmiri daayay haye xilka waa laga tuuray haye bakaal isaguna meel daran buu ka dhacay haye meeshii gidahay waxa ka socota sifayn
iyo loolan baa halkaa ka jira والله كذا ولا سكوارك inta ma ka dhaafnaa way intaynan Trump u tegin waxaan tegi doonaa Djibouti جيبوتي جدالك جيبوتي Ismaaciil Cumar Geelle xisbiga la yiraahdo RBB RBB oo xisbiga talada haya هي oo isugu gudoomiye ka yahay ayaa shirweynihii isugu yimid هي waxay yiraahdeen waxa inoo tartamaya mar kale oo shanaad Ismaaciil Cumar Geelle isaga dafad boohaya وبالنسبة dadka iyaga wala shirkii oo socda horta sawirka eeg inuu hurdo samarti wallahi waseexday uu seexdaba warba ma yahay xamash dadka odayaasha ninkaas leeyihiin mashanada hal door hurda ayo weeyaan hurda ayo argala weeyay ka nin active haduu yahay il waliba intaas la ekaan lahayd shirku intuu socdo dhiciyo dhan biyeegi lahaa markaas meel walba qoransan lahaa kusaa laga biqi lahaa waa ninkaas seexday ninkii seexdaa siciidi bidhaa nin khudbadaynaya ayaan isna khudbadiisa ku soo bandhigaya magaciisa horta waxa la yiraahdaa ugure kifli ahmed ugure kifli ahmed waa faransiis ma isagu waa anfar wala ruux wada ka takaa way ugure kifli wuxuu soo qaatay hees uu qaado fanaankii maxamed salmaan tuba oo ahayd haddaan garabka lala qaban heesta ahayd wuxuu leeyahay laakiin waxaan idiin soo gudbinayaa gabay uu tiriyey maxamed salmaan tuba dhowga Soomaaliga waririye baadiyo gabay heesta ujeedada waxa uu soo qaadanayo waxa weeye in uu amaano marwada koowaad madaxweynaha khadraxayd oo fadhida ayaa qarannimada iyo dawladnimada kala weyn in uu gabadha qanciyo waana waxa ay ku wada hadaaqaan aman Allah baa badalaa way fahansama Djiboutiyaanka cabsida ay ka cabsanayaan Geelle Ismaaciil Cumar Geelle alla salaada markay tukanayaan ay baan khadra soo hadalay inta kale waa khadraxayd khadraxayd iyo hooyadii iyo qaar ooya oo waxa tiraan hooyadii wadanka ninkii dhamaa ee intaas ummada xisbigiisa ugu keenay gabadhii buu la hadlayaa bal intan ila dhageyso tuba ilaa naxariista heestiis inkastoo nin geesiya buu yiri gabaygii tuba inkastoo nin geesiya ragi uu geedaha ragu geedahay yahay haddaan garabka lala qaban buu yidhi ikaadii waan hayaa Sulaymaan inta kale waan hayaa haddaanan garab lala qaban buu yidhi guri oodi maaye حاجة أديك سكلك فيها. لا لا وحركة هي. أنت ما جاهز. أنت وكاه يا. شوفوا حالك إذا بدك حاجة ورا الماء. حالتي واحد. هي. حالتي هذا دوحني. ودك يوغندا. أوغندا. أيا واحد كسرتي دور الشو. هي. صدق يصدق حسن الله. أي مزفن هيست. جو. ولو حليه. تذكر يشعل. ولا إسماعيل عمر قال ما هبرداك بطل. حبيسين. وليه كوعية بس كسر قلان. isna saasoo kula seexanaya kaso kule dadka jecel dabeet waxa dhacay doorashadii baa loo dareeray dagaal baa dhacay dad mucaarad ku ah iyo dadkii askartii dawladda ayaa digada iska dhigtay waxaan la xidhiidhay Kampala wiil Soomaaliya ayaan telefoon u diray waxaan u barnaamijyadiina iyo xaaladdeena ka warramay waxay yiraahdeen any time bay qarxi kartaa xaalad faray ka baxday okay maxaa daba dhacay dadka Ugandese way si diyaar garoobeen diyaar waxay si iibsadeen bangado تاسوي نالي markay laba cisho doorashada ka harsanayd ay Soomaalidu dhan dareertay waxa tagan meelihii bangada lagu iibinayay bangada siibsay iyaguna sold out wala wara liibsadaan ana wareerina Soomaal cilmi gacanta lagu hayo ayaa waa order the order galeysteen daari order special bangad meel taalo oo la iibinayo ma jirto inamada waxa igu yiraahdeen bangad la'aan ayaanu nahay ana la soo gaar biradu waa noo bariyo waxa noqonaysaa in amade oo yoontii la hadlaa weey ila qaramada midooba la oo bangada la soo gaar amaanka halka farqo maraya waxa soo dhan waxa keenaya nin dictator oo 30 sanadood iyo ka badan kursi ku fadhiyo oo dadkaygu ay jecel yihiin cid ila tartamaysan ma jirto imika Ismaaciil Cumar Geelle markii shanaad buu soo sharaxay in madaxweyne noqdo waxa dhiba su'aasha la isweydiinay waxa weey يلا ترتمي دون عندنا سيدان دي وكلجيس عندنا يا انا قراين هي جيبوتي الصوماليه waxay kaga wanaagsan tahay kaliya baa tartamaya Djibouti muqdishona 20 baa kula tartamaysa
كنا تاسع وريرة 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 بس لبعض هو تنين شرحنا بوقت. يشد دعينا سوية ايش بطلان وادي اوغا سنتكي هore سنتكي labadii sano والله لكم laba iyo 20 baahan inta horta هذا ودباتو Soomaal gal de sida ninka la ismaana margeele mala waxa wanaagsan inuu 30 sano iska fadhiyo yiraahdo dadka aad i jecel dadka aad i jecel ha wasaas waayahay intaasna inta ayaan kaga gudbi doonaa wasaas sheekada ugu dambaysa waxaan tagi doonaa Donald Trump هي ninkii Trump ahaa horta ceeb buu kaga tagay meesha أنا اللي كسر في عبوها هجري هي habartii haruurka maxay ahayd rilqaysa axmed uu dambaysa ka tagtay ayuu noqday ninkii horta ceeb baa meesha laga saaray ceebtiis imika waxay sii maraysaa wixii idaacadaha laga maqlayay iyo kicin dadweynaha meel iska dhig White House-kii ayuu sawirro ka xaday sawirro taariikhi ah oo dowladda Mareykanka ku leedahay iyo hadiyado White House-ka iyo lay ay halkaa ku qaatay kalinkada iska qaatay waa wuxuu ku dhibla aye wali sidii buu leeyahay wuxuu ku waashay waa laga xaday waana lagu shubtay codadkii wali sidii buu absay ninkii markii uu la tartamayay Joe Biden wuxuu helay Joe Biden 306 cod odaygan musu helay mataqaana Donald Trump 230 wuu ku dhacay Soomaal waaye impeachment ama xilka xayuubin ayaa aqalka hoose ay u codeeyeen mataqaan codkii intuu noqday 230 baa tiri hal rijal ninkan lambarkaas waa wareeray odagu nambarka horta ku wareeray 32daas 232gaas dib dambe warka ma nambarkaas laga saaray weey lambarada odayga markii impeachmentkii lagu qaaday inkastoo ay 5 cisho ka hadlayba madaxtinimadiisa haddana way shaqaynaysaa aqalka sare hadduu isna ku raaco dib dambe uma soo istaagi doono xafiis dawladeed ninkaas dib dambe ninkaas ayaa loo geliyay noloshiisa wartal midha dadku ma taas inta ma tahay hantidiisi baa durba la bilaabay ayaa bilaabay in la galo ilaan waa millionaire in la daba galo taw warsan maxay ka bilaabantay kontraagyadii uu qaadan jiray qandaraasyadii uu qaadan jiray wala diiday imika wanaga tagbalay ana wareerinay baxran New York way diideen naga tagbalay no way beeran odagu sidii Mike Tyson ayaan u malay inuu daawaha ku socon doono هذا داو كسرعة يا مان العقب الله ورنتورا ماندو يا وياه هي waxaan eegay hadaba madaxda Soomaalida Donald Trump xagee isaga eegay Trump iyo Soomaalida madaxdiid haye yaa ka bilaabay yaasiin musabix ma ka bilaabay oo Somaliland ninka markaan labada nin soo eegay musabix iyo Trump aftaaga iyo talamarorsi ay aadsigay وفن سمع أروى فهد ولا وسيقي هلك وسيقي دني بان أجي سعيد عبد الله دني عقلي دي يعرس كا لباسي ألسوي ولا عقلي ولي ترى أيه وحنا أحمد مذوب حق سيقي أحمد مذوب ها كرسي شعير كرسي شعير قدك ما يشبل أنا شبل يا وفن سمع فرماتو حسيقي دورش كده جت ninka la codod iyo doorasho tii kaga dhiganay doorashada baa la dhacay doorashada baa lagu shaqeeyay Soomaal gar waxa kale oo isageeyeen inuu sii joogo ayuu mid walba labadooda doonay labadooda waa jecel yihiin iska seestaan madaxweynenimada labadooduba labada madaxweyne xagga beentana way isageeyeen saas ku dircay anaga sameynay anaga yeelay anaga qaadnay intaas inta ma tahay waxa ay soo haray meeshu uu eeyahay khayre fata dhugta أنا كمان كرميرك كمان أنت وحكي لي دير كان اسمه سو كرميرك أنا حافظيه بوساوري وحكي له أصيل رسيجين سلامت ميدل بحشي صاير هذا يا ضفر بدن وساليه أنت أنا سيجين هي فسع الورابع كو وركا حكي سيجين ترى والده يك أنت ضف شعب نسكت عيو شعب سواء سكوت طلع أي طلع يا ورا labadoodu talo ay waalida wallahi Trump iyo isgeeyay way aad bisgeeyay haye sheekh sharif basaar sheekh sharif isgeeyay la soo sheekh oo sheekh hageesay laba arrimood baan eegay haye oo ay aad isgeeyay haye dumarka badan labadu waa dumar jecel dumar badan waliba haye taas qodob ma tahay iyo thumo wallahi labadu waa dhaartaan haye kana Donald Trump wuxuu yiraahdaa tan dhacdo wala arki doona wallahi wala arkaya guriga laga soo saarmay White House carar waa ninkaas hay soo dhawaad thumo wallahi tan dhacdo والله لو دارتو بدات دارتو بدات ناغودنا بدي بدي
intaasna barnaamijkii maanta ayaan kusoo koobaya way cali aad iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahadsan tahay waanigoo Yaasiin Ducaale waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabad gelyo